Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kusoo dhawaada FX Somali review. Another video maalmahan mashquulka batay. Sorry. Insha Allah taala dib baan usii wadi doonaa reviewgeeni. Aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan. Subscribe, like, share and comment si aan u aragno dadka siday u daneynayaan iyo annagana aan isku taxaluujino inaan dadaal fara badan aan gelino intii tabarteena ah oo ilaahayna fahansiiyey dadkana uun faa'iideyno insha allahu tacaala. waad ku mahadsantihiin mar labaad. afterdaad haddii aan maanta aan ku bilaabo suuqa, maanta waa taariikhda 24 bisha 9aad 2018. Asia waa morning, insha allahu tacaala waa 6 AM morning bay ii tahay India xaggeeda. soo marka insha allahu tacaala suuqa weli si fiican muus u furmanin. European sessionka baa aad iyo aad loo filanayaa inuu xoogaa suuqa ilaa Mareykanka inuu dhaqaaqo hadduu alla idmo insha allahu tacaala. After that waxaan ku bilaabi doonaa Euro USD. aad aragtaan in qiimihii uu soo dhacay the last 2 days, inuu qiimihii last day Friday-da aan dhehe inuu qiimihii soo dhacay. aad aragtaan in qiimihii laga soo celiyay 1.1792 oo that area ah resistance area, previous resistance area oo ku aadan bisha marka eed 5 July 2018 meeshaas laga soo celiyay. alxamdulillah qiimihii hadda waxaad aragtaa in mar labaad meesha uu isku dayayo inuu kasoo laabto hadduu ilaahay idmo. waxaan inta ku sugan laba support. This support waa 4 hours kan hadda aan joogno, kan kale waa weekly support oo resistance ilaa 2 jeer lagu cadaadiyey uu ka laabtay markii dambe kor looga qaaday. And this one also another support oo aad u jeedaan resistance-ga markii laga soo celiyay in qiimihii uu cuskaday. markii lagu cuskaday la soo celiyay moving average-kii uu support ka dhigtay. after that qiimihii oo ka dhex baxay. marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in qiimaha welibana today waxaa jiro European-ka news baa u jiro hadduu alla idmo insha allahu tacaala. welibana 2 news baa jiro kaasoo European-ka ku hadli doonaan. newskaas live waaye. midna insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu soo baxo markii Soomaali u tahay 11 AM oo barqadii ah subaxii. waa German IFO Business Climate Index kaasoo oo la filanayo in qiimihii hoos u dhaco, laakiin insha allahu tacaala wixii kasoo baxo waan arki doonaa. wax sidaas ma bedeli doono, wax sidaas u weyn, balse European Central Bank-ga way hadli doonaa insha allahu tacaala Soomaaliya markay u tahay 4 galabnimo hadduu alla idmo insha allahu tacaala. insha allah waxaa iyadana wax badan buu iska bedeli doonaa. Euro USD in this area we cannot say bullish or buy ma dhihi karno. maanta uu suuqa aad iyo aad daciif u yahay jiritaankiisa, balse markii Mareykanka ciyaarihiisa la furayo waxaa hadli doona European Central Bank-ga. markaasoo kale in qiimihii uu kor u kaco waa la rajeynaya insha allahu tacaala. in that time waa ku fiican in qiimaha si fiican oo la socdo hadduu alla idmo insha allah. qofkii buy mal hore ku jirayna waaba aad iyo aad stop loss meel fiican buu iska keensanayaa. after that buu sugayaa another muxuu ahay chance kale inuu sugo hadduu alla idmo. in this area waa support. another time waxaan sugaynaa 1.1688 ilaa 1.720 inaan another support kale aan ka xaqiiqsano. after that aan buy set up galno insha allahu tacaala. waxaan kaloo fiirin doonaa intaan Euro-da ka bixin Euro Yen-ka oo aad aragtaan last day European-ka inay soo dhaceyso hadduu alla idmo. haddii aan fiirino in this area waa resistance support area, resistance becomes support. sorry idinka yar qariyo.
in this area waxaad aragtaan in qiimaha oo support resistance ahay haddana support uu isku bedeli doono hadduu alla idmo insha allah in this area in laga celiyo waa suurtagal haddii kalena uu soo jebiyo in qiimihii mar kale in this area uu ku beegan ilaa three resistance one in this area oo loo soo dhaweeyay ay u dhaxayso ilaa 30 pips in this area another resistance becomes support in this area so marka insha allahu tacaala ilaa maanta in qiimihii uu soo yara dhaco balse indhaha ku haya hadduu alla idmo insha allah Europeanka Euroda hadduu alla idmo Euro Canadian aan fiirino isagana quickly Euro Canadian Euro Australian waxaan rajeynayaa in qiimaha weli uu sell u yahay hadduu alla idmo in this oo qiimihii oo support area oo resistance isku bedela hadduu alla idmo uu socdo isaga weli selkiisa Euro Canadian aan fiirino in this area resistance balse uu ka noqday oo ka baxay support oo ka baxay mar kale support oo qiimihii wax yar fake breakout sameynayo laakiin haddii in this area uu maanta qiimihii Europeanka uu soo dhaco in this area Eurodooda ay hadasho oo qiimihii positive uu noqdo hadduu alla idmo insha allahu tacaala up to here waxaan rajeynayaa in isagana laga faa'iidi doono hadduu alla idmo insha allahu tacaala isha ku haya in this area markii aad si fiican aad qiimo ula socoto ama buy limit aad dhigato hadduu alla idmo insha allahu tacaala aan fiirino pound USD isagana poundka last day waxaad rajeynaynaa in qiimihii dad badan ay ka faa'iideen selkiisa qiimaha sidiisa badan markuu support area ama resistance area hadduusan resistance xoog badan ama support xoog badan uusan ahayn qiimaha sometimes wuu soo jebiyaa sometimes fake breakout sameeya waxaa fiican haddii jaanis aad u helayso in qiimihii qofka uu la socdo hadduu sell uu ku jirin selkiisa oo kala baxo inta ugu badan ama haddii kale uu kala wada baxo profitka after that qiimihii inuu la socdo inuu cuskanayo areas marka aragto in lagu cadaadinayo oo fundamentalkii iyo technical analysiskii price actionkii everything ay ku cadeynayaan in qiimihii lagu cadaadinayo meeshan uu rajeynayo in rejection lagu sameeyo qiimihii kor loo qaado ama hoos loo rido qofkaas uu ka faa'iidi karaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala in this resistance waa ujeedaan support another support so marka insha allahu tacaala I think waxaan rajeynayaa in haddii in this area oo clearly uu noqdo qiimihii support area saxan oo ka dhigto time frame-yada yarka ilaa insha allahu tacaala 1.32 waan rajeynaynaa inaan ka faa'iidno hadduu alla idmo insha allahu tacaala isagana pound USD but last day waxaan rajeynayaa Thursday bay ahayd waqtigan aan soo dhigay groupka laakiin Friday buu dhammaystiray weliba si fiican Friday oo si fiican jibiyay oo soo dhacay hadduu alla idmo insha allah oo waxay resistance supportigaas hadduu celin lahaay another buy kala baan gelin balse si xoog badan buu uga soo dhexbaxay ilaa haddana uu socdaa qiimihii marka haddii uu meeshaan u cuskado insha allahu tacaala waxaan rajeyn doonaa inaan ka faa'iidi doono hadduu alla idmo insha allahu tacaala waxaan kaloo fiirin doonaa isagana hadduu alla idmo waxaan fiirin doonaa pound New Zealand isagana aad ujeedaan in qiimihii uu support and resistance uu qiimihii uu kasoo tegay waad aragtaan in qiimaha uu si fiican usoo dhacay New Zealand-kana uu kor u kacay oo last week oo soo baxay New Zealand newskii uu soo baxay oo laga faa'iiday aan rajeynayaa marka insha allahu tacaala isagana indhaha ku haya pound New Zealand sometimes fundamentaladu way kala duwan yihiin lacagaha pound New Zealand oo kale waxaa ku xiriiro New Zealand baa ku xiriiro sometimes sidiisa amba fundamentalkaas waxaa laga yaabaa pound New Zealand inuu saameeyo hasbihin marka poundka hal meel u wada socda hal meel ka wada gal marka insha allahu tacaala adigoo technical analysiska ay fundamentalka dhan walba ka fiirinayso waa in qiimihii aad markii aad xaqiiqsato go'aanku dambe adiga baa leh oo adiga aad ku raacdo hadduu alla idmo insha allahu tacaala sidaas buu setupkii u samaysan yahay hadduu alla idmo
qiimaha in this area kusoo laabto resistance uu caddeeyo si fiican u isho hadduu alla idmo insha allahu tacaala se haddii uu soo dhaafana in this area baa support yaalo aad u jeedaan resistance support up to in this area xitaa waa dhihi karnaa balse in this area 9464 haddii uu kasoo gudbana 940 insha allahu tacaala we will see waan arki doonaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala midka kale aan rabo waxaa waaye Australian USD haddii aan fiirino dailyga aad si fiican u arki kartaa chartka ujeedaan down trend buu ku jiraa ilaa hadda balse hadda buu soo yara kor loo soo yara qaadaya hadduu alla idmo insha allah Australianka within last in this year waxaad aragtaaba in Australianka uu soo dhaxay 0.81 masha allah waa 1000 pips waa uu soo dhacay hadduu alla idmo balse qiimihi hadda waxaad aragtaa resistance oo down trade-ka another resistance oo markii saddexaad hadduu alla idmo in qiimihii uu hoos soo aado insha allahu tacaala in this week you will see you can si fiican baa u arki kartaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala resistance area-da in qiimihii mar kale uu sameynayo in qiimihii uu sameynayo oo hoos in uu soo socdo so marka waa laga yaabaa inuu ku beenguuro laakiin insha allahu tacaala ka warsuga hadduu alla idmo insha allah qiimaha meesha ugu horeyso fast take profit-ka waa kaya hadduu alla idmo kaasoo aan dhihi karno wuxuu sameyn karaa head left shoulder iyo right shoulder after that in qiimihii uu jibiyaba in qiimihii uu ka dhex baxo meesha hadduu alla idmo insha allah sidaan oo kale inooga dhex baxo qiimihii sidaas oo kale inooga dhex baxo after that uu soo laabto support uu ka dhigto markuu ka dhigto hadduu alla idmo insha allahu tacaala uu ka duula in this area marka insha allah anyway markii aad profit aad gasho profitkaaga wax fiican aad ka hesho waxaa fiican waa stop loss-kaaga inaa entry point-ga ama aad profit at least 20-15 pips aad soo dhex dhigato si aad uga badbaado haddii xitaa qiimaha uu soo sameeyo uu soo laabto hadduu alla idmo insha allahu tacaala so waxaan kaloo fiirin doonaa USD Canadian isagana oo aan last two days aan soo dhignay inuu qiimihii uu kor u socdo support area buu joogaa waa kana before last week waxaan sheegnay in qiimihii kor uu yara aadi doono uusan ku laaban doonin 1.32 oo sida ugu laabto ay adagtahay maadaama qiimihii awalka hore uu ka baxay support la filanaya laakiin qiimihii dollarka uu soo dhacay iyo Canadianka oo isagana this week uu sameynayay muxuu ahay growing up oo soo sameynaya maadaama before last week in this first month bishan koodeeda isbuucii ugu horey in qiimihii Canadianka inuu hoos u dhacay balse inuu soo sameynaya hadda dib u celin fiican iyo growing uu soo sameynaya qiimihii dollarkan waa uu saameeyey Canadianka wuu saameeyey waxaad aragtaa in qiimihii masha allah in this oo ka dhigtay mar kale haddana uu sameeyey sidaas darteed haddana qiimihii uu si fiican u soo dhacay support area oo ujeeda hadda waxaa range camal buu ku jiraa oo qiimooyin doojiyaal iyo wuxuu tuuranayaa biinbaaro sidaas darteed dadka baa loosaska yarka dadka dhigteen baa aad iyo aad looga aruurinayaa looska sometimes markaa yareyso waad ujeedaa range camal buu ku jiraa doojiyo buu ku jira so marka insha allah wuxuu sugaaba nasiino ku jira hadda waa xogaa yar uu nasanayaa in this last day uu nasanayaa marka wuxuu sugayaa hal meel inuu u dhaco hadduu alla idmo insha allah haddii qiimaha inuu kasoo dhex baxo in this area dadkii ka galay maasha allah ani 97.5
waan ka galay alxamdulilah waxaana ka hayaa ilaa hadda 19 buu marayaa adiga 20 pips camal marka maasha allah ilaa 42 muusan gaarin awa take profit keena muusan gaarin xitaa waxaan dhihi karnaa profitka 1.2978 haddii uu maanta gaaro oo qiimaha rejection lagu sameeyo insha allahu tacaala another this area inuu imaan doono kadib uu ka hoos bixi doono ama uu ka duuri doono hadduu alla insha allahu tacaala USD Canadian isagana sidaas indhaha loogu haayo waxaa kaloo ku xigo aan rabaa inaan fiiriyo USD Switch haddii aad aragto qiimihii supportiga ah wuu kasoo hoos baxay support area uu kasoo hoos baxay maadaama doolarkii last week uu qiimaha wax badan uu dhumiyey doolarka ilaa hadda China xitaa waa hanjabaadyo hubub waa la isku hub qaadanayaa waxaad aragtaa in meeshan pin bar uu ku jiro hadda idmo USD switchka aydin cadeeyo in this one pin bar aad ujeedaan in qiimaha rejection uu sameyn rabo uu cadeynayo qiimaha marka uu rabo inuu hoos u dhaco waxyaalo badan baa lagu ogaan karaa fundamentalka technical analysis price actionka soo marka hadda isagoo resistance support hore resistance jooga qiimihii ma dhihi karno hadda buy ma dhihi karno waa aad u socdaa kanalada balse mar labaad haddii meeshaan uu cuskado oo pin barka noo cadeeyo in qiimaha uu socdo oo marka uu sell area uu soo galo insha allahu tacaala waxaan rajeyn doonaa in qiimaha uu sell noqdo up to here aan ka faa'iidno ilaa 70 pips in that area insha allahu tacaala waan dhihi karnaa dailigiisa haddaan fiirinino down trade buu ku jiraa ilaa hadda waxaad ujeedaa in qiimihii uu kasoo hoosbaxay haddana mar kale uu qorigan uu sameynayo doojigan welibana dooji muusan noqon laakiin waan rajeyn doonaa inuu midka u noqdoba insha allahu tacaala intaas baa inoo balanaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala waa happy trade waxaan idin rajeynayaa guul baan idin rajeynayaa subscribe like share and comment waad ku mahadsantihiin daawashada videogan waa anigoo Sakariya Usmaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh